banaanbax looga soo horjeeday qaraxii lagu xasuuqay dadka shacabka ah ee ka dhacay sabtidii la soo dhaafay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho isla markaana loogu duceynayo dadkii dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. boqolaal shacab ah iyo mas'uuliyiin ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyagoona wadooyinka socod ku mareeyay ugu dambeynna waxay isugu tageen barxadda weyn ee Olympic halkaas oo uu madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Mudane Suldaan Cabdulqaadir Lugadheere afhayeenka baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka qayb qaadanayay banaanbaxa baroordiiqa ah ay khudbado ka jeediyeen. walaalayaal meeshaan waxaa isugu nimid inaan muujino shucuurteenna sidaan uga xunnahay falka argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho xaafadda Zobe isgoyskeeda kaasoo ay geysteen argagixisada caadaysatay inay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. dawlad gobolka Jubbaland ayadoo ka xun dhacdada ay dhibaato dhacday waxay murugo tacsiya u diraysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed shacabka magaalada Muqdisho dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ama ka dhaawacmeen dadkaasi ku dhibaatoobay falka argagixisada. intii uu banaanbaxa socday ayaa waxaa gabi ahaanba xirnaa goobaha ganacsiga iyo iskuulada iyadoo dadku ay ahaayeen kuwo dareenkooda ka muujinayay falkii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, telefishinka caalamiga Ariel, Kismaayo.